Hubeysan ayaa ugu yaraan ku diray 22 qof gobolka bartamaha Nigeria ee Niger sida uu sheegay suduwaha amniga ee gobolkaasi. Khasaaraha ugu badan waxa uu ka imanayaa kooxda feejignaanta deegaanka iyo saraakiisha booliiska. Gobolka ayaa bilihii la soo dhaafay la halgamayay sidii loo joojin lahaa weerarada ay geystaan burcadda hubeysan ee dambiyada gala. Suduwaha amniga ee gobolkaasi Mohamed Makunda oo howlgab ah ayaa sheegay in Dableyda loo malaynayo inay qorsheynayeen afduubka dadka deegaanka markii ay ku yimaadeen Mootooyinka magaalada Duku ee deegaanka Rijow. Xubno ka tirsan kooxda feejignaanta ee u samaysatay ilaalinta dadka deegaanka ayaa marka lagu dilay isku dhacyadaasi ay la galeen kooxda weerarka soo qaaday. Saraakiisha amniga ee dowlad goboleedka Niger ayaa sheegaya in Dableydan hubeysan lagu dilay 2 dhacdo inkastoo tirada aysan weli cadaynin. Gobolka Niger oo kamid ah dalweynaha Nigeria waxa uu kamid yahay dhowr gobol oo ku yaala bartamaha iyo waqooyi galbeed ee Nigeria halkaas oo burcadda dambiilayaal hubeysan ay had iyo jeer ka geystaan dilal iyo dhac iyo boob iyo waliba afduub madax furasho ay ku dalbadaan. Dadaallada isku dhafan ee ciidamada amniga iyo kooxo maxalli ah oo ka shaqeeya amniga ayaa guul daraystay si ay u soo afjaraan rabshadahaasi. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo. Warmaahay run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday. fikir. hadal oo hadalin. maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kali ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.